So walaalayaal barabagaadada la iskula durduuray ayaana falaqeynaynaa soo bad soo walaalayaal umri fatxada umri soo dhawaada walaalayaal soo bato ayaa isgaadhay soo bato si sugaynaa wax badan baan falaqeynaynaa oo arrinta kuwaad ka mid tahay waa ragteero cajiib aan la ka aragnay soo dhawaada waan iska bilaabanaynaa who cares walaalayaal soo dhawaada barnaamijka nabadiid ku soo dhawaada meel kasta dacalada adduunka joogtiin walaalayaal horta waxaan nii sheegayaa sidii caadadu ahayd hawlihii uu iska badan yahay ee waxaad ka daawan karaysiin sidii caadigu ahayd inaan kusoo celceliyana ma jeceli facebooka ama youtube-ka haba si haata walaalayaal waxaan ogeysiinayaa horta intaan barnaamijkayga isdul taagin oo ka hadlin arrinta fu'aad ee laga dhigayo wax jadiida iyo wax badan intaan ka hadlin aan falanqeyn walaalayaal waxaan horta na ogeysiinaynaa inaan dowladdii ku meel gaadhka ahayd ee dalka Djibouti ku dhaqaaqnay amba gouvernement de transition-gii inaan ku dhawaaqnay oo ka hadalnay aan isku raacnay taana walaalayaal samra intaan barnaamijkayga isdul taagin inay ta arrimaha ugu waaweyn ee maanta laga sugayo waa arrinta fu'aad iyo markii saddexaad ee lagu geeyay telefoon amba siduu u sheegay inuu jeelka ku xidhan yahay 3 bilood horteedna waa nii sheegay April markay ahayd arrintiisa inay soo gabagabeeyeen ninka la yidhaaho fahmi oo weligiiba service secretary oo SDS laba kii canfariga mamaasan la qabto inay taanaga nagu soo waashan sidaan anagu nii sheegay native-kii yimiday maraykanka hooyooyinkoodii iyo hablo uga fuulay sidaan nahay sidii baa u dhacday xataa daab baa la socod xataa odayga kriminalka ee ka dhacami isaga afkiisa ku sheeg inay taanagu waqtiga nabiyaal ma ahayn nanooma soo waxyoonin aqli baa leedin aqli baan leenahay aqligeena un baan ka shaqaysiinay imikana نعم ساك الصباح دي هوران وقعي وحن ليا بهوران وقعي فيديويال شا أو انترفيو جيسي بحيث واد لي صدري وران واسك جرنيبة حتى كلمة دقيقة يا بيسي تليفونكم واسك قد حستا جالك آديال فيلنكا يا فيلن لميدا أنا فلقين دونا بل إلى دقيقة ولا عليال إسمرا دولتكم ملقار كايد يا كودا واقني أقويا كاين تكلمني معنا دقيقة واحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأريكو محمد عوالا ومانتا كو هادليا مقعا دولة كوميل غاركا أبا gouvernement de transition de la République de Djibouti waxaan walaalayaal inii sheegayaa in ay gaadho waqtigii aan ku dhawaaqi lahayn dowladdii ku-meel gaarka dowladda ku-meel gaarka oo siyaasadeedii aan sugaynay insha allah ay noo soo dhabaatay oo rajaynayno inaan iminka qaybtii u horreysay aan ku dhawaaqno annaguna iminka ahaan dowladdii ana ku dhawaaqayn waayo maxaa yeelay inaan annagu mid iska soo cayibano una nidhaahno waa madaxweyne waynala noqon weyday arrin maaragtay dadku ay ku qaracayaan marka waxa aan sheegayn waxaan maaragtay aan isku qaadnay cid kastoo reer Djiboutiya
meesha adduunyada daclada ay ka joogaan inaan u ogol lahay inay kasoo qayb geli doonaan shakhsiyaadka isa soo sharaxa en soo dhigno waxaad ka arki doontiin nabadi t v shakhsiyaadka raba inay isa soo sharaxaan oo madaxtinimada isku soo sharaxaan marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha reer Djibouti meesha adduunyada joogaan daclada joogaan inay kasoo qayb gali karaan qof kastaba u bannaan yahay qofkii kolka ahaan ay shacabku u bataan inuu dowladda horta maamulkiisa uu wado uu dowladda soo dhisto waxaan si kaloo dadka ku dhiirigaleynaa annagu waxaan nahay waa gruubkii dhisayay haddii de intayda soo dhisaysa soo dhistay lala soo dhistay ciddii rabta ee kolka ahaan iyagu raba inay maamulka ama madaxtinimadaba ay ka qayb galaan electionka way ka qayb geli karaan waa loo ogol yahay waxaasena ku casuubaynaa xitaa shakhsiyaadka macaaridka sida hore u sheegnayba xisbiyo waa wixii 20 sano dhanba cidladhiga shacabka reer Djibouti xisbiyo lama ogolo laakiin shakhsiyaad meesha wuxuu doonaa aaminsanaado maadaama uu siyaasadda dowladda uu isagu uu doonayo inuu ku hogaamiyo dadka hordhigaya amba iyaduba haddana xitaa haweenkuba u furan yihiin iyaa yiri inay ninoon inuu madaxweyne noqdo amba ninoon inuu madaxweyne ku-xiga ra'iisul wasaare noqdo haweenka xitaa aqoonta leh haweenka wax maamuli kara iyaguba xitaa dalkeenna aan ognahay inay maamuli karaan waa u furan tahay marka walaalayaal waa qaybtii u horreysay ku dhawaaqnay saan inii sheegi jirnayba intaayoo dhanba waayo wax lagu degdego talo laguma gaadho degdegaa baan iska diidanayn oon ugu mahadnaqayno shakhsiyaad badan oo maaragtay khubaro dheer u leh dowladda la soo shaqeeyey meelo soo shaqeeyeen magacooga imikaan ay maaragtay walaalayaal ujeedadu waxay ahayd dowladdii inaan ku dhawaaqnay aan qofka la soo sharaxayo ama soo sharaxayo ee diyaarda u furan tahay aqooyaan maxamed cawaala hadalka dhameey walaalayaal ninkan aad arkaysiin waa nin baraha bulshada imka ku soo batay oo dhaqan xumo lagu yaqaano oo dumarka caaya haba si hata walaalayaal ninkan waa nin ciise oo mamaasan oo raacigaala hooyadiina waxa weeyaan waa ciise udax kobreekool u fiirsada walaalayaal muddo ininku markaa dadka caayayseen aad mamaasanka caayayseen sheekh muuse caayayseen si inkoo dhanimo odhan karayo shakhsiyaan waxaan odhan karaa kuwan saqajaanka ee qurbaha jooga qiimahaad xidhay iyo kuwii sheekh muuse wax ka sheegaya ee maqaamkii dhannaayay sheekh muuse maqaam ka dhigay lagu tumto oo reer dhan caayay nasabkooga oo ciise ka mid a dowladduna way nii kaadisay inayta mamaasanka 100 goor baa niigu soo celinayay aani fahamsiinay war walaalaha iyo waxaana samaynaysiin waa ceeb dadkan la dhasheen mamaasanka sidaa u caayaya amba dad tolkooga nasab caaya oo sheekh muuse caayay oo dad badan caaya waa niga niiga digay mamaasankuba dee dad safiyiinaan leenahay inayta waa reer dhane sheekh buu leeyahay shaydaan buu leeyahay sakhraan buu leeyahay ciyaal suuq buu leeyahay dee waana nii samray dee safiyiyaashii mamaasanka ayaa dee nii soo baxay oo nacaaye marka anagu kaabo aniga shakhsi ahaanteeda inta telefoon ii soo dhacay ninkan la hadal ninkan waa nin raacigaala ninkan ma ciisuu caaya ciisuu si xun u caaya oo waay ninkan iminka uga calacalaysiin inaku shalay markii sheekh muuse la caayay ee annaka nasabkayaga la caayay inaku kuwiina maxaad u qaban lahaydeen marka walaalayaal annaku midaan nahay nabadi tv ahaan ciise waa wada ciise nin caarama dheero ayaan ku shaqaynaa ninkanna waxaan farayaa yar dhigayso horta ninkan aabihii oday fariidu ahaa allah u naxariistee gobonnimo doona oo xataa xasan guleed uu iska dheereeyay oo qusuulka labaad ee muqdisho ka dhigay isaga mana caayo waxbana waan farayaa war waxaan ku farayaa haddii aad dowladda u shaqaynaysid ee dowladdu arsaaqad kugu siinaysa cayda ciise caayaysa ogsanow mamaasanku ciise wax ku yihi xasan guleedna ciisu wax ku ahaa doqonkan iminka joogee islaantu maamulatana ciisu wax ku yahay adiga sida kale mid baan ku farayaa nin ragga haddii aad tahay ragga iska dhow annakana soo caay waxaa doontay samee ee dumar iyo haween aad caayaysa isla xishoo nin ragaatee isla xishoo ogsoonowna mamaasankana wax ka dhigaysid gadabursigii shalay adhiga u jirayay ayaa maanta dhagax ku dila qarbadadar dhulkan ka imana waan isdhaqaanaa annaku jabuuti baan ku dhalamay dhulkaan leenahay qarbadadar farda lagu xidh
farda lagu xidh iyo maxay ahaydeen maxaan ku dhaha laanta waraqa waa dhulkii raacigaalka dhagax buu maanta gadabuursigu ku dilaa mamaasanka raacigaalka marka jabuutina sidaan mar walba yidhaaho nin ciisa kama sheegan karayo waa territory de horone urweyne adeer marti baa ku tay marti edeb la noqo aad iyo aad ninka dhinaca baan kaga baxayaa ee shakhsi noocaayoo kale inaad u waqdadowdiin oo telefoonno iisoo wacdiin maaha waxa ninna maaha naagna maaha ee reer dhanna ma matalo sida u ogsoonaada annagu kuweega shaashadan soo dhigna runtan u sheegna waana karbaashnaa kuwiinana runta u sheega weli kan uu roon yahaybay xataa sheekh reer u ciise leeyahy weli ma caayin marka sida u ogsoonaada aad iyo aad waa ka soconaynaa walaalayaal waxaan doonayaa inaan fahamsiiyo baryahan waxaa soo noqday arrintii Ethiopia soo noqotay oo meeshii Ethiopia ayaa ciisay weerar lagu soo qaaday weerar haddii lagu soo qaaday ciisay way iska dhabeen whatever arrintan canfarta walaalayaal ka weyn dan la helay bay dagaal ku soo qaadeen dan la helay kelinka waxay ku taallaa Soomaalida ninkan aad arkaysiin oo Mustafa Cabdi waa madaxweynihii kelinka weejaan ciidamada new police looma dirin waxba looma dirin ninkan aad arkaysiin waa ra'iisul wasaaraha ninkan aad arkaysiin waa ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu la xidhan yahay madaxweynaha dalka Djibouti aala buuraya islaantiisa u fiirsada shalay markii ciisa weerar lagu soo qaaday wasiirkii maaliyadda ee Ethiopia inashada iyo dalka Djibouti yimid idaacadda RTD-dan ka daawan warkii Soomaaliga oo kontrabe wala saxeexanaya mar waliba ciisa weerar lagu soo qaaday amba la gumaadayo waxa yimaada wasiirka amba madaxweynaha kelinka Djibouti yimaada marka arrintan waa arrin la isla og yahay marka walaalayaal waxaan farayaa odayaasha ciisa cirroolaha dadka ciise jooga Dirdhabe amba city boqorka meel ka sareeyo la taabto ma jiro adeerayaal ciiso tashada kelinka Soomaalidu maanta kelinka Soomaalida iyo dagaal lagu soo qaaday dan la helay iyo dagaal lagu soo qaaday oo iska daawanayaan madaxweynuhu ilaahay dawladda Ethiopia ciiso kelinka tobanaad ku dhawaaqa cityna ka go'a 150 goor baan anakii aqooyan Maxamed Cawaale nagu soo celcelina siyaasadan waa siyaasad canfar ka weyn canfarna ma weerarayno reer canfar la yiraahdo ma daandaansanayno waxana canfar ka weyn waa dawladda Ethiopia waana la isla og yahay dadka wadada Ethiopiana in la gumaado ciisa la rabaa oo dhulka xuduudoodan laga qaado dhinaca kalena dan la hel maxay mooyaale iyo tuluguleedna Soomaalida kale ee ogaadeenka iyo jaarsada in laga qaado la rabaa marka wadada ka kaca ciiso kelinka tobanaadna ku dhawaaqa okay horaan uga soconaya taa walaalayaal ninkan aad arkaysiin waa Fuad walaalayaal sida la leeyahay ba videoyaashii la soo diray saaga 5 subaxnimo oo u badnaayeen saanta canfarta ugu aqli badan iyo qolooyin kale u badnaayeen walaalayaal waxa aad arkaysiin muddo waxaan sheegay anigu 4 bilood ilaa 5 bilood waqtiid April markay aad 12 ayaan arrinta Fuad aanu ka hadlay aan sheegay qofkii xiray wixii cirka la maray ninkan aad arkaysiin inuu service kareeha waligii baan waan isku ogaa ninkan aad arkaysiin oo kale traitorkii canfarka walina waxa la yaab leh anitan igama yaabinayso waxa la yaab leh ciisaan inay naiif yihiin ma oranayo waa naiif dadkan qurbaa ku nool waxaan raacayaa xadiiskii Sheekh Mustafa amba suuradii waxaan raacayaa suurat al-Baqara dadku waxay gaaraan heer markay xaqi iyagoo arkay iskaga taga ee baadilka jeclaadaan ninkan intuu xiray ninka ayuu dariiskiisii xataa soo gashaday laba xidigood ayuu soo gashaday markiina waxaa lagu soo banaan baxay wuxuu ku soo baxay badanka inay dawladdan Djibouti waxay baratay dadkan markuu qofku ku barto uu ku xafido blogaaga aad waxa sida u fikirtid si kale uu ku xafido hadda waxba ma tiid dadkan mamaasan baa loo caaya directorka cirku waa mamaasan directorka naagaha suuqa xukuma waa mamaasan ka faarigu waa mamaasan ka samada u duulo waa mamaasan ka cirka gala waa mamaasan خلاص ninka waa mucaarad waa tootoyaashan da qurbaa ka buuxay de mucaaradka iska dhigaya tootoyaasha mamaasan uu soo hadal qaad خلاص waa mucaarad waa laga gashaday ninkii Fuad la qabtay la xiray hadii la xirana uu wala sheegay maanta wixii ka dambeeyay oo dhan ولا شيء فؤاد نكاداب بايلا سؤال ولا بلايا إلى سؤال محي بايلا سؤال أوكي أنت فؤاد فيس كلام نقطة السياق أرت فيديو كان صور دقي ودور بلودورتين فيديو كان براك نيوز يوحنا نقدر دقي وح عصب معه أصدق بلودورتود وحنا أنا تاني هو في رصدا قف شعبة ودرسيتا
darees lama gali karayo Ethiopia horta kow darees lama gali karayo marka isaguna wuxuu afkiisa ku sheegay oo aniga iga yaabiyay oo mar horena nii sheegay oo rag badan ay ku qabsadeen oo nabadiidu inaad saas samaysid maaha ilaa imika wuxuu leeyahay telefoon baan ku dhaxaystaa jeelka telefoonka markuu jeelka ku dhaxaysto inta charger baa loo geynaa waa loo charger gareynaya videogan maanta marka la soo tuuray hadana islaantiisii baa la soo tuuro le 28 cisho odagay waxba ma cunin 28 cisho waxba ma cunin ciisaha gaalada ay magaalada jooga baba horta arrintaa oo dhan walaalayaal aniga sayla tahay fikradahan waa film hindi inta xaafadaha ayaga kartikaad xaafadihiisa laga soo gooyayaan anagu galeynay riida Bombay yaa la oranayay riida Bombay xaafadaha ayaga la oranayay markaan qayalayo waxaan malqi jiray bayaan hihe waa ku jeclahay waa ku kaneynaya baba sheekada fuaad walaalayaal waxa uu eegtahay ilaa imika film hindi iyo uu eegtahay u fiirsada qof maxbiisa oo xiran oo dalka Djibouti ku xiran oo gabood ku xiran oo telefoon haysta oo telefoon ka soo galaya oo waa la xiray dhinaca baa ku xiranahay dhibtan baa igu dhacday sidan baa igu warda jeelka waan galnay gabood inaguna waa gasheen walaalayaal una fiirsada mar waliba dadka dagaal lagu soo qaado soo ciisaha Ethiopia baa filmaanta la keenay fuaado xabsiga lagu geeyo telefoon arinta fuaado la siiday waa marka wax la laaqayo Ahmed Titu fiirsada markuu xidhnaa 6 bilood baa maxkamadda la keenay 2 sano lagu xukumay kadib waa la soo sii daayay arinta fuaad haday wax jirta too runtahay aniga midaan ahay guntii waan ka gaaray arintan fuaad anigu shakhsi ahaanteeda nabadiid aniga iskar waa film hindiya waxa waxba kama jiraan gabigoogo dhawaa service secret taabana aanu aaminsan intoodoo dhan dawladda u shaqeeyaan dawladda inay u kala badinayaanna inaka hadda arkaya wayna caddahay waxa ayaan leeyahay 2 toddobaad kadib baad ogaan doontiin arrintan oo dhan inay gubtaa inay taano nabi may lima soo waxyoodo ma maskaxdayda ay siinaysaa aqligayga de sidii noo kala fikiraa aqli saliim waan ku fikiraa inay toto aanu may totoyaashan may buka okay arrinta faad walaalayaal waxa la doonayo ciidamada dhaqdhaqaaqa in lagu ogaado militariga Djibouti inta waxa laga shakiyay ciidamo badan baa laga shakiyay in la ogaado la rabay ciidamada dhaqdhaqaaqooga u fiirsada mid kale aan tusaya akteeradii tawaamina u fiirsada akteeradan aad arkaysiin iyaduna waxay kamid ah akteerada roolka fuaad si adkeynay dhinaca soo joogsan dressman ka saaray tiri waa la xiraa waxaan ku xidhnaa gaar Republican heesiin macaanay magolba ku heestay kadib mudday maqneed way soo baxay 18 qoys baan raashin siinay maxay walaalkay waa la xiray waxa dhan walaalayaal waxba kama jiraan ninkan aad arkaysiin waa odageygii wuxuu maanta la siiyay transityasha mara min Djibouti ila Maaya Hargeysa bureau d'exonération way soo maraan magaca dawladda ku baxaan bureau d'exonération ay soo maraan waxba lagama qaado intaanu contribution ka shaqeyn jiray contribution ga joogay waan garan karaa bureau d'exonération tax iyo lacag ba lagama qaado magac shirkadeed uu ku soo baxda waa la saxiixa dasid hore uga baxaysa marka walaalayaal ciidamada waxaan farayaa ciidamada dalka walaa inaan inaga gashin akteeradan arrinteeda iyo filmaanta walaalayaal waxaba yaraatay ka jiro ma jiro keeska fuaad dhinaca kaga baxaya marka walaalayaal waxaan doonayaa inaan tuso ninkan aad arkaysiin Hussein baa la yiraahdaa Hussein waxa weeyaan waa nin barnaamijka Nabadi TV wareey Djibouti Masar buu degan yahay waa nin Ciisa barnaamijka Nabadi TV iyo si fiican loo kala soo shaqeeyay dad badan oo dhibaataysan ayaan caawinayna oo bukay marka isagu waa nin dhinaca jooga wax barto oo dhalinyara waxba bartaa dhakhtarada iyo naga caawiya dhakhtaradu garanaya qof waliba u baahan Masar inuu qof ku soo daweysto dhakhtar ninka yar la xiriiro Hussein ninka la xiriiro Facebook-giisana ana nasiinay telefoonkiisa ana nasiinay walaalayaal sad ogsoontiin oday adeerkeena oo bukay baa jiray odayga bukay oday ciisuha aniga horta la soo diray odayga marka sida caadadu tahay qof waliba anu waan iska weydiiyaa qabiilkiisa midaan ahay qof waliba qabiilkiisa waan iska weydiiyaa marka odayga wuxuu noqday Ciise furlabo noqday hadii ay qaadato odayga oo tiraahid caawi baan siri qolooyinka Belgiga joogay ee qof aan qaataba idaba ordayay xaasidnimadii kuwii baa bilaamay baan xaasidiintii marka odayga farahan ka qaaday dad Ciise odaygu waa kan ma sha Allah
waa kan odaygaad arkaysiin odaygaa uu bukay anaa fiidiyoyaashiisana na daawisiin doona marka odaygaa walaalayaal arrintiisii farahan ka qaaday waxaan faraha uga qaaday dad badan oo yaa jira oo qabiil ahaan u arka amba reer ahaan inaan nacabay oo dee xasada saabaan faraha uga qaaday dad badan oo ciise arrintii qaatay hablo meel joogaa qaatay hablo kaloo australia joogaa lacaga soo diray ciisihii baa iskugu tegay odaygii uu bogsaday bal odayga dhibta ku dhacday ee ugu horreysay isagoo ka sheekeynaya iyo isagoo siduu caafimaaday quruxdiisa aad ka yaabi doontiin ayaana dhegaysiinayaa dhegaysi wacan tan maaha walaalayaal raalli ما شاء الله soo socda xaaji soo socda okay waa kan video ugu horreey raalli hada walaalayaal raalli hada waxay igu dhacay 15 bishii dhaxay waxay igu dhacay albaab igu dhacay waxaan hagaajiyay harmuus baan gadaaya ka ahaa shirkadda leh Oman waxay igu fakaday albaabkii weynaa ee sida tareenka u shaqaa igu dhacay xoog oo igu dhacay waa wasiirka kula dhacay xilka kaalida ayaa igu masaktiga wasiirka ku jira kolkaa intiga dambaysa waa layla orday daktar baa la geeyey daktarkii weynaa haddana la qaaday raxmaa la geeyey raxmaa rabarkaa gelisay raxmaa korkii rabarkaa gelisay bila kadibna waxaa la tegey cabdiraxmaan sheekh ninkii haysan jiray bufarkii عرفتوا يقول قراءة تيجي ويقولي ويل أو ويل كفروا من الكلام ويقولي أو شديد أو تحرر وأنت سفري لا وأنت سفري من بعد ما تجوبي وحرت تيجي نكالي الشيء تيجي يجوي أفرمية غير مريض بكلا مريض أتلتي ومريض أفرمية غير يجوي مريض يملك الشيء يا حرت تسميه وأين حرستان وهاي يسكت تجين وهاي يقول لنا كان يبقى تقوى قواعد أنا درو تبدأ ما حبي لهن وأنا درو ولا دري كل كيلو دي ده ولا شو جوي لعيت على صبر دي مليون لا مليون على صبر وأنا هيا ورقي يقولي وأنا هيا أوجب كم هيا إذا ما وحنا درمو كأله عن كاتشر وكذا كذا يا كذا درمو هالشيء تعلو كيف ولا لا إسلام كتبوا عصماني وحكوا السنة عدت لا إنه حكوا أي وحاجات ثانية تاتان يقول السنة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal sidaad ogsoontihiin odayga adeero dhibaatadaaba haysatay dhibaatada ha haysata adeeree muddo bukay siduu nii macneeba dee hadal isagaa ni dhameeyay odaygiyo waxaana tusayaa dadka qurbaha jooga daclada adduunka oo dhan ee ciise iyo iskugu tegay ciise waa wada ciise nina nin caarama dheer maaha walaalayaal anigayna waxay soo dirtiin anigu dadka caawiyo annaga ujeedadayada nabadi tv iyo aqooyaan maxamed cawaale waxa weeyaan sidii xeerka noo hayd nin waliba ciise inuu wax u taro annaka ma inagu wax isku tara arrintan iyo arrimo ka badan aad qabateen iyo jir waan ku faraxsanahay annagu waa waxa ku farxnaa hore ugu socono because xeerka yagi ayaa soo nooleysmaya cishoor waxa dhacay 3 cisho horteed bay ahayd rag baa igu baahnay cusbayaan oo nabadidooda dagaalku uba fiicnaaba dagaalkii horaba fiicnaaba ciisayna batustide hadda dumarkii baad socotaa oo dumarkii baad nagu dirtay wallahi baan ka yiri waana ku socoliyaa rag badan baa arrinta ay ugu la baahnay doorkood tayada khayrku ku badan yahay ka ciise khayrku ku badan yahay umba u kala tuuray kala inay dhacaynba waana ku dadaalayna in waxa la yiraahdo dadaalaaba xaaji Cabbaas buu gaadhaa marka walaalayaal waxaan tusayaa arrinta markaan dhinaca iska dhigo dadkii odayga wala gargaaray meel kasta daclada adduunka joogtiin waxaan garanayaa dhowr hablood oo meel Portland joogay ayaan garanayaa iyo inta kale iyo Xuseen daclada adduunka meesha joogtiinba walaalayaal waan nin mahad celinaya waan ku farxay fiidiyoyaashan markii la soo diray wallahi ilaahay baa igu waan ku farxay waxa ay wax ka badan walaalayaal isku qabta ciise inuu isgargaar weejaan dadka iyaga Ethiopia ku nool dadka iyaga ku nool Seylac Luqaya State walaalayaal waa inaan isgargaarno ciise wixii fiican raaca aqligaagu ha shaqeeyo qabiil waa wixii Soomaaliya baabiye reer hoose ما عيسى ووضع عيسى نين عارم دير دولة جيبوتي بقى إليرشي كقاعدة عصبيان كإليرشي كقاعدة شلي واحد أركي قرآن ليس صدره تو ملا عصبيان ودورته وشكر جبريل له قرآن ليس قرته يلا تصوم ذي كلا ده هاي
Sisanglila il m'a dit que Uzbayan, Awarum Uzbayan bataille, ton arrière-grand-père est venu à Hargeisa, ton arrière-grand-père est venu à Burma, dalkan martiba ku tahay. Anagu dhulkan waraaqada markaan buuxino waxaa la naydhaa ma taqaanaa minority visible dalkanna Ismaaciil Cumar ka reer Djibouti waan isku reer Djibouti les archives hadhow dowladeena cusub aan ku dhawaaqnayna wax xeerkiina anaga nimarsiin doona aad baa dalka ugu kibirteen xoolaha ayagana aad baad ugu kibirteen walaalayaal qof waliba cusbayaan aad aragtiin carab iyo waxa dhalinyarta ciise Djibouti joog say taa u taabatay qof waliba u digteeya adeer martibaata cusbayaan baatay sharaab sida walaalayaal ugu sheega haba si aad u walaalayaal waa nin mahad celinaya odagii waxaan tusayaa oo qurux badnaaday isagoo Masar laga soo wado la geynayo Djibouti isagoo xaaskiisii la kulmay isagoo dadka u mahad celinaya ayaan walaalayaal tusayaa ila daawada daawasho wanaagsan ما كان ما ولا لا على هذا ولا لا السلام عليكم هذا waxaan ku sugannahay madaarka Qaahira adnako caawa alxamdulillah sabootinayna aabaheen faarax xarbi oo u sii jeeda xagga iyo dalkii isagoo nala qaatay muddo maad aragtay muddo aan badnayn nala joogay dalka Qaahira alxamdulillah isagoo caafimaad qaba oo ka baxay ma sha Allah ولا لا الواقع مركو دلك يمدي كان صار انا بقول سويه النعنع بقول سويه صار الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر وين ابو قصاري وين قصاري تبارك الله وين قصاري مع القصر ما شاء الله ما شاء الله صوصعد حاجي صوصعد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يس بسرعة حاجي يورب ما في عنا ما شاء الله هاي هاي بس ما شاء الله صوصعد هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه والله حجدها دي وضعها بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قلت نلعب قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسعتها 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 صوصع 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 خمير هاي ولا لا isagoo nin mahad celinayna waa daawan doontiin oo adiga arkaya odagii kaadahayntu goonayd isagoo fiican oo qurux badan dadkii ka soo shaqeeyna mar labaad mar saddexaad ayaan aniga shakhsi ahaanteyda u mahad celinayaa walaalayaal anigu kama qayb gelin midaan ahay ee waan u mahad celinayaa waa farxad waa guul waxaayoo kale ileershiga ka qaadaan dowladdu iyo cusbayaanku ciise wax isku taraya walaalayaal aad baan ugu faraxsanahay bal isaga ila dhagaysta oo mahad celinaya meel kasta daclada adduunka joogtiin ilaahay ومهد علينا كو وحول بدأ إلهي وفديدي إنه مهد علينا وقسم إلى دقيست عليه السلام قلت ما هذه إلهي باي إلهي با مهد فتحله إلهي با مهد علينا نبيني توبنان عليه الصلاة والسلام إلهي شغنا عن حديث النور ومدي كهدان هي نقل إله نودي بدافع قلت عنه
soo الحمد لله أنا عادي. horta maanta waxaan leehay anigu horta maanta hadalka igu daaya waxaan hagaajinaynba hadal waxaan u hagaajinay farxad darteed wallaahi ba ku daran farxad baan u hagaajin waxaa walaalkeenu tiri sidaa unbay ahayd sidaa uu sheegay ahayd gabadhaa casarkii bay la soo hadashay sidii ilaahay uridana way noqotay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahayna waan ku mahadinayaa dhibtii ahayd ilaahay waa iga dulqaaday istar fiican baa helay iguma raagina soo laaban insha allah bismillahi waa isugu duubay halkaana dhibaata igu helin wax dhibaato helin intiina waa u mahad celinaa gibigooga laakiin maanta farxad waxaan hadalkayga hagaajinay tiiray ku soo dhacaysaa sidaan ahaan jiray iyo sidaa maanta halkii ragga uga kaadinayo iyaa laba iskuhen ilaahay baana lahaa ilaahay baana iga qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah maasha walaalayaal waa ninka arkaya waa guusheeni waa guul ciiso inay wax isku qabtaan walaalayaal aad baan ugu faraxsanahay aniga shakhsiyaanteeda wallaahi bilaahi waxaaya wax ka badan baan naga sugaynaa inaan dadkeena caawino oo si daacada u caawino maadaama imika munaafaqadii ciisii qurba jooga badanka afarteer jibusiyaan waa 1% awal waxay ahaayeen 50% intaana kalsooni darida ayay waxa iskugu macaaneen dadka kale maanta alxamdulilah wax waliba waan tusin wallahi wax qaarkood waxaan ku farxaa aniga shakhsiyaanteeda dadkii cadowgayga ahaa ee awal igu nacayay ciisanimada iyo waxaan ka sheekeynay maanta markay arkaan kuwa magaalada il jooga ama kuwa kale proud bay gu yihiin gacantayga dhukada nabadiin inaadeer waxaa noo sheegaysa waa run yes aniga igu diid siyaasad reerkaana ha igu diin me adiga ciisanimadaada isku kalsoono nin ciisaa tahay nin ciisaa markaad tahay cirkan yar ku jira adeer landheeraa tahay waxaan waa wax annaku xoolaha yagii baasbooradeedu wax ku ah nin ciisaa proud inaadeerka inaan lagu dirin waa nin tolkaay ininkaa berito la heshiin isku geed baadiin waxaan walaalayaal xeerka yagii waa inaan kusoo noqon okay dumarkan si gaar ahaana u faraya dumarka qurbaan nala jooga boqolkiiba waxaan aaminsanyahay dumarka ciisaa boqolkiiba 99.9 waa dad tafa maanta waxa reerka dhan dhisay ciise waa dumarka walaal aad ba maxabada dee khayrka ku badan ilaahay noo soo hadeeyay inta waxa la yiraahdaa gacantaada gubatay gosha la gashada hablihiina fara nin ciisa maahine nin kaloo ciisa ahayn jiq maadaama waxaan sidaa u leeyahay wax badan baan ogahay anu misin galaanahay weli ma guursan wax badan baan ogahay hablaha cawradahana waxaan farayaa walaalayaal nin ay soo sheekaysatiin oona ku guursan oona xaas weyn fiidiyoyaal wasakhi iyo hadduu ka yidhaaho jirkaaga isud waxaa u dirin rag badan oo ciyaar suuqiina jira oo doqma ah oo sida moodaysiin hayn annaguna hablii cawradaha waxaynu weydiisteen guurkii ciisaha hablaha ciisaha ragga ciisaha la isku keenayay walaalayaal ana si gaar ahaan igu sheegi doona plan public kama sheegi karayo maadaama dadka majority daawada cusbayaan iyo ciise u badayeen marka qof waliba privacy-giisa ayaan jeclahay anigu maadaama privacy-gayga jeclahay qof walibana privacy-giisa aan jeclahay arrintan waan ila socodsiin doonaa annakii aqooyaan maxamed cawaale dumarkana waxaan faraya ku adkeynaya wax waliba uu hagaagtay hablaha aad iyo aad walaalayaal waxaan doonayaa inaan tuso arrintii kusoo noqono ismaaciil cumar geela ahayd arrintii ismaaciil cumar geela ahayd ee guryaashiisii fondation EOG lagu dhacay fondation EOG ismaaciil cumar geela lagu dhacay oo ninkii hargeysa tagay oo markuu hargeysa tagay dadkii guryaasha aan muddo u hadlaynay dadkii way nala soo hadleen walaalayaal waxay yidhaaheen aad baad u mahadsantihiin daraadiin ayaa waxnu nagu qabanaya okay guryaashii hasii haato
guriyaashaasi 200 oo qof in gaadhaysa ayaa lacagta laga dhacay oo guriyaashii laga dee ninkii lacagta ka qaatuu ka socday oo naagta wasiiradda aamina lacagta la cuntay naagtan wasiiradda lacagta la cuntay aamina arrin fool xumo ceeb laa dhacday naagtan baa lacagta ninkeer la cuntay ninkeer hargeysu iska joogaa wax laga daba tegay ma jiro dumarkuu qabaya mid baa ciisaayad oo mamaasan oo raacigaala tiun baa la xidhay kadib markii wax lagu waayay xawaaladahoo dhan la mariyey waa la iska sii daayay haba sii haato dadkii ismaaciil cumar geela malqay ismaaciil cumar geela markuu malqay uu yidhi war dadka niyow iga siiya buu yidhi 200 qof waxaad iga siisiin guriyaal ku taala siite faaraxaad meeshan loo saaray siiteehoodana bugta siite faaraxaad baa la yidhaha siite faaraxaad buu yidhi qof waliba waxaad siisiin 150 kilometer kare oo guriyaasha waa inaad siisiin qof waliba jago waxaa dhacday ismaaciil cumar geele waraaqadii soo sameeya ayuu ka yidhi naagtan oo ra-iisul wasaaraha naagtan oo wasiirka ah maxaayad habitationka iyo directeerka ku xiga amba agaasimaha ku xigoo nin ciisa oo horona naagtan waa naag isaaq waa wax la yaab leh isaaq oo habar awala oo dalka Djibouti hal wasiir ka yeelanay maanta 3 wasiir bay leeyihiin kamaaliyaga ee secretary generalka 3 wasiir bay dalka Djibouti ku leeyihiin iyo 12 xildhibaan waa wax aad u nasiib darra war ciise waa ka hoogay marka 200 ee dad wuxuu yiri siite faaraxaad ka siiya jago gaarisa 150 kilometer kare okay waraaqad baa loo keenay 150 kilometer kare ayaa looga dhigay 150 meter kare raalaada kilometer kare ma meter karegi ayaa looga dhigay 1000 meter kare lacam odagu inuu dawaqsan yahay ismaaciil cumar geelle oo madaxiisu baaba yahay waraaqadiibu saxiix qof waliba 200 ee dad ee qoysaa qof waliba jago wuxuu leeyahay 1000 meter kare dadkii markii waraaqadii la siisiyay la yidhi jagooyinkaana ni mitriyo dadkii jagooyinka u mitrinayay unbaa laga yidhi ninku waxaa leedahay 150 meter kare sideen 150 meter kare u leenahay aw 850 meter kare maayma inaku intaa unbaa leedahay ma qaadanayno unbay dhahan dib unbay adugu u mudaharaadeen madaxweynihii baa malqay ayaa haddana lagu celiyey war waanigii yidhi dadkan jago iga siiya 150 meter kare madaxweyne maadaa 150 meter kare yidhiba 1000 meter kare baad saxiixday oo goortaan saxiixay naagtii wasiirka ahayd aamina ilamaa imika waa lalaayahay Djibouti telefoonka madaxweynihii kama qabanayso cali cabdi bay u tagtay islaanta iigee bay ka tiri ilamaa imika waa lalaayahay iyada iyo kii ku xigay agaasimaha ama directeerka reer Djibouti u yaqaananka waa ku horona ilamaa imika waa lalaayahay kana waa kan dee hargeysu iska baashaalaya gabadh ciiso wax iska haysta ama maasan ku raaxaysanaya waa ninka arkaya naagtana ilamaa imika lalaayahay naagtan waa lalaayahay meelay martay meelay joogto cali cabdi baa noogu dambeysay markay u tagtay imika madaxweynaha haddana wuxuu yiri bisha 10keega maxaa nooga aray bisha nooga afar cisho bisha 10keega ayuu yiri dadka 200 qoys iga siiya 150 meter kare jagooyinka ka siiya faaraxaad siite faaraxaad marka bisha 10keega iyo qolooyinka la raacayaan oo dadkii 200 qoysa 150 meter kare la siinaya naagtan imika ra-iisul wasaaraha ilamaa imika meel joogto kulli ma hargeysa tagtay inta lacagteeda markay dhacaan hargeysa tagaan ninkii shaxaadka ciisa ku noolaa Muuse Bixi baa wax yar la siiyaa lama arko lamana xidho marka walaalayaal arrimuhu waka ee waxaan iga digayaa walaalayaal kuwan mucaarad isku sheega sida ni sheegayay baraha bulshada waxa ku soo badanaya maadaama imika walaalayaal montaagi ugu dambeeyay ismaaciil cumar geelle cidii ku dagaaltamaa cidiyaha wallahi bani ma sheeg cidii ku dagaaltamaya odagooda si aqli badan maaha saantana way iska haysataa ruufiyaanadii basaasadii baa ku soo badanaya mucaaradkan aad arkaysiina walaalayaal mucaarad tay wax dhalinaya mucaarad maaha fikrad fiican la imanaya imika waxay baraha bulshada yiraahdeen walaalayaal ku soo noqday shicibka reer Djibouti maxay u kicilaayeen shicibka reer Djibouti maxay u kicina waa shicibka reer Djibouti 2013 waa dadkii kacay ee dad badan ku shaqo beelay mucaaradkay raaceen USNT baa kamida USNT waa ninkii la kala jijibiyay qabiilo loo kala saftay
emerday baa baabiisay emerday oo odayga caayaysa maxay ahaydeen odaygii dambas weyn cumar cilmi kheer emerday oo le annaku uun sheefa noqono voodkii baa imid election presidentialkii daahir axmed faarax afkiisa waxaa laga hayaa ducaal ciga coof laga yidhi annagaa kala dirnay ismaaciil cumar gille inuu qofba la ordin dad badan baa lagu dilay oo naftooda ku waayey dad badan baa lagu xidhay dad badan baa shaqooyinkoodii ku waayey marka dadka sidaa loo dhibaateeyey 7 sano horteed sidee baad doonaysaa maanta inay usoo kacaan adigoo kolba qabiil la safanaya sidee baad doonaysaa in dadkan dad cawaana ma dadkan dad duqmaa ma dadkan waa dad soo jeeda marka walaalayaal una fiirsada inay fikrad hayn annakii aqooyaan maxamed cawaale ayaa soo bandhignay dowladda ku meel gaarka ee dalka Djibouti gouvernement de transition way la wala ordeen kii wasiirka enerjiga ahaa waxaan la yaabay khudbad lay soo diray khudbadeynay wuxuu ka sheekeynayay ciidanka dalka Djibouti kaba ma haystaan buuri aduma minister de waxaad ahayd anteriorka dalka Djibouti wasiirka arrimaha gudaha dalka Djibouti baa ahayd maxaad nooga sheekeyn weydo nooga warrami weyday koraanka dalka Djibouti amba koraantada inta shirkadood ee bixisay inta shirkadood ee bixin inta ku jirta dowladda ee bixisay inta bixin inta reer ahaan jaamac cali geelle uu ku siiyo koraantada bilaash inta khadar habeeso tulkeed bilaash ku siiso waxaa maad nooga sheekaysi markaaba xishoonay inuu indha adagiyo wixii aan annaga ku dhaqaaqnay doonayaa inuu ku dhaqaaqo walaalayaal mucaaradka aad arkaysiin waa nooca mudday dalka soo lahaayeen mucaarad baan nahay u fiirsada annaka nabadi tv videoyaasheeda way download garaystaan amba markaan ka baxno inta aniga uu tusaya imika ahaan facebooka dib iyo jirta ma uu tusay inta qof ee download garays intay download garaystaan iyo fikradda aqooyaan maxamed xawaale kopiyayaan marka walaalayaal waxaan faraynaa insha Allah waan soo bandhigi doonaa dadka isa soo sharaxaya inuu hadday baraha bulshada inta naga daawanaysa siiba ciise canfar un baa loo ogol yahay inaad soo sharaxdiin weejaan dowladda meel gaarka cusub insha Allah bismillaah kariimna faasdeegu oo bilaamad whatever inta detail aqooyaan maxamed xawaale ayaa jimcaha ka bixin doona xilliga nimanayno iyo xilliga kale walaalayaal dadkii doonay barnaamijka inay ka soo qayb galaan nabadi tv walaalayaal soo dhawaada ka lambarkaygu barnaamijkaygu waan soo gabagabeeyay soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada gabadh xiisaaya oday soo gartay maxay sheegays adhow mashida soo dhawaada walaalayaal whatsappka aad ka soo hadli karaysiin dhinaca kale aad ku soo hadli karaysiin welcome xiisa Ethiopian inaad tashatiin weejaan inaad tashatiin oo fahmi kani canfariga akteerkan baa ka khatarsanay akteerkan soo gashaday dharkii fuaaday mama sana ismaaciil markala waa taashay dalka iskaga tag alla ya samacana daakros adar macaan xisaabaad noolay manasaysi hindida adeer wax waliba iska soo baxayaan annagu waxaan idhaahno annagu nabadi tv waxaan idhaahno waxaan ka soo tashaday inay tahay qof keligii tashaday iyo qof bulsho badan fikrado badan isku keenaan qof bulsho badan iyo fikrado badan isku keenaan ayaa fiican siba dumar badan baa nagu jira aad iyo aad waa ka walaalayaal akteerka canfariga ee cajibi addis ababa la iskaga raaxaysanaya beerta la iskaga cabaya waxaa la leeyahay ismaaciilo mamasano oh yeah walaalayaal soo hadla waa ka lambarkaygu aad iyo aad waad soo hadashay haddana waad goysay soo hadal amba kugu soo celiya soo qabo haya hadal oo kusoo qabanaya Hamza Ali Sabakusa adhow
ceelaabe daayar iyo maxaad iga daawanaysaa hadday ku dhibayso waxaan ka hadlay waayaad ii daawanaysaa gada fakareer log baa ku saaraya adiga baalkaagan waan iska kaadeynayaa langaab xuna waxaa tahay doora amba gadaabaad u eegtahay igu raaxaysay daawo doofaarga qof aan u jeclayn ma daawan karayo ma ogsoonta wallaahi bilaahi qof aan jeclayn ma daawan karo isbayaankaan way wala daawanayaan wayna soo caytamayaan iminka baryahan waa nin naxariistay blogga waa niga daayay walow nidina blog ni saaro ciil ha ni dilo aad iyo aad walaalayaal aad iyo aad anugu waa mahadsan tahay saxba anugu dadkan iskuma macaaneynayo anu siyaasadeed waxaa wejan shaksiyadeeda ciise oo wada ciise nin caarama dheero inay tahay adduunkaba majority baa lagu dagaaltamaa dadkii hore walaalayaal gobonnimada waxay ku qaadanayeen majority-ga ciisaha badanka usoo halgamay dalka cafartu waa dadna la degan oo walaalaheena whatever haddana waxaa wejan waa minority 5% imika iyaku laaqma ku qodiil wax la yidhaha khatariin balkaa canfariga markas maasano fuad tunole fuad hadli fuad tunole fuad hadli anigu maxay anigu ilaahay baan ku xaway oye waa reer xamar reer soomaaliya dalka nala jooga dhinacana joogno adeer reer soomaaliya jooga shaydaanka ka cawdubilays abo fiiri kambar gaaban aan ku fadhiyaa no sheeko waxaa la imanaysa laga tegay aad iyo aad walaalayaal kulley waan soo gabagabaynayaa midaan ahay ugu dambeyn waxaana dhegeysiinay aqooyaan maxamed cawaale ayaana dhegeysiina kusoo gabagabeyn inta haddaad soo hadlaysiina soo hadla haddii kalena wakadeer tii waxaan kusoo gabagabeyn naagta jagada aad iyo aad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يلور عجيب وإليه بيبا جبوتي كنعي on degdeg aan igu soo gabagabeynaya mar raba inaan ku dheeraado waxaa dhacay walaalayaal inaad xasuusatiin mooye kii yaraaye lacagta jagooyinka EOJ fondation EOJ maxaa dhacay socodda amba ururka magaca madaxweynaha isma war hadal hay ku soco kama bixine soco hadal hay qol maahae barnaamijka nabadi t v dheh soomaaligan ku hagaajiyey afka ay xalan barnaamijka nabadi t v xambar la leeyahay horumarkiisa ha socdo صح mid baa ku darsanaya caalamadiin hore صح mid baa ku darsanaya dadka isku sheegaya maalis sheego waxba dadka halugoyn baa leeyahay dadka waxba ku gulgoyna hadda ojis waxay umada halugoyn baa leeyahay umada halugoyna ya waxba nabadi t v na fikradaha wax ka xalina fikrada badan baa nabadi t v haya oo horumar oo ku hambalinaya nabadi t v meesha wajahaysa allah ku barakeeyo ما شاء الله aad iyo aad sax ku saarnay waxaan ku duceeyo garamay aad iyo aad waad mahadsan tahay jazaak allah khayr inolo saasile aad iyo aad dhalinyarada badan ayaa ila soo hadlaya turkiga jooga amba jooga whatever adduunka walaalayaal waxaa weeyaan inagu isqacan qabta tolnimo isqacan qabta xeerkeeni ciise ku dhaqma isqacan qabta ayaan farayaa intaan baan farayaa dhalinyarta waana ku faraxsanahay dhalinyar badan oo meel kasta igala soo hadlaysa waxaan iska buka ha raacina intii reer ay dheenaysaa ciise waa mid uun ciisena waa 12 afartan is eryanayna ka soo qaadon de reer waliba dad waalan bay leeyihiin sooma aad iyo aad laandheeranimo adeer soo hadla ay babarkeele lagu dhisay lagu sameeyey mas-uulka uga dhigeen hargeysa ula caray lacagta 205 milyan oo farka Djibouti gurteen bahayd isaga waxaa la sheegayaa siduu isagu sheegay 9 ilaa 9 milyan buu isagu la caray inta soo hadhay gabadhan Amina Cabdillah wasiirka habitaaga amba dhismaha iyo directeera oo Cabdikariim Leila
iyo ta safiye la yidhaahay maaragtay safiye malgaash Safiya ee Malgash. xildhibaanada iyo inta kale ku tagtay waxaa dhacday tii tuka daran baaba dhacdayba walaalayaal waxaa dhacday waa anagii ka hadlaynay isagii telefoonku ku helay arrinkii madaxweynuhu u maqlay arrinkii madaxweynuhu iyo dadkiina waa kuwa bannaan baxayay maalimahan oo dhan bay bannaan baxayeen waxa igaara la siiyo dee waa anagii nidhi dee maaragtay mas-uuliyaddeeda qaad mas-uul noqo adaa magacaagii dadka lagu dhacay dadka lacagtooda loo celiyo fikrad wanaagsan buu keenay wuxuu yidhi dadkan jagooyin hala siiyo waa 180 ilaa 200 oo qof weeyaan wasaaraddii buu la hadlay gabadhaasi wasiiradda la yidhaha aamine cabdi iyo directeerkeyga warqaddii soo sameeya title fooseyga amba titleka la yidhaha qofka marka jiga la siinayo titleka inaad adigu leedahay wuxuu yidhi waxaad soo samaysiin qofkiiba inaad siisiin 150 meter kare amba maaragtay mirror square baan jeclahay 150 adigu laakiin Djibouti loo yaqaano 150 meter kare saasay kan meter kare qofkiiba 200 oo jaga meesha loo xeeray laga siiyo leyrida waxa weeye waa meesha ka soo horjeeda siitee farxad boortii farxad adigu dhinaca yar ee sheekaysa maskarada xaggaas baa layga yidhi jagada yaa loo qodeeyey warqaddii bay soo sameeyeen wasaaraddu soo samaysay iyo directeerkii baa isla soo sameeyey madaxtooyadii baa lagu celiyey isagu inuu saxo weeye umuba fiirsane qof kastaba 150 meter kare soo sameeyey buu ka yidhi 1,000 meter kare baa lagu soo qortay 1,000 meter kare yaa lagu qoray wuu soo saxay dadka markaa waxaa la siinayaa dee title foosegii amba ma titlekii waxaa ku qoran 1,000 meter kare la socda oo 200 qof ah markii warqaddii la siiyey dadku way farxeen 1,000 meter kare baa la siinaya markii dad lagu daray nilii maaragtay leydinida meterinaya unbaa la 150 baad leedihiin wasay 150 ku dhacday aniga warqadaha la siiyey kuna ku kaayeen wasiidada 150 kale shaqo ku baleedeen way haddana way xaraaqeen way dagaalameen waxay gaadha la wada siiyo ama ka boodayeen 1,000 meter kare qofkii baa dila siiyo waa jagooyinka haramuus laga bixiyo xitaa way iibin karaan inta iyagu way dhistaan maalinta kale igu yaabeen waxay leeyihiin madaxweynuhu wanaagsana naagtani maaragtay aamine cabdiwale wasiiradda ah ee habitaaga ilan kala kaaqaan iyo cabdikariim leedahay isagoo directeerka maareeyaha habitaaga ama dhismaha ee dowladda ah wasaaradda idilwey yaa ilan samaystay qofkiiba bareeg 200 oo qof bay qofkiiba ka dilaaraya 850 waa midda iga yaabay marka imka lay warramay sidee sheekadani ku dhacday uma fiirsado adigu daalay wuxuu seexayay ugu fiirsanayba ila isagu 150 meter kare yuu yidhi siiya qof walba soo qora intaa baan u seexayaa lacagtoodii sida ha u qaataan amba ha dhistaan amba ay iibiyaan iyaga u taallaa lacagtooda ha u soo noqoto kun baa laga soo dhigtay isagu ilayna ku tay ugu fiirsana u seexaw qarjab uma ku siiyey dadkii way xanaaqeen way dagaalameen iminka kuwa iyaga ka mid oo dadkani la siiyey baa ila soo hadlay war waxaana noogu siiyey buu waa qaylada noo qaylinayseen bay lahayd ood ka hadasheen in madaxweynuhu ka xanaaqay tan lagu sameeyey iminka arka madaxweynuhu iminka maqle ismaaciil cumar geelle balaaya qabsatay ina se loo dhacaya daawada inuu daalay inuu wax walba u haynin markaase maxaa lagu yiri waa maxay qayladan iyo buuqa la sheegay iyo dadkani dacwoonaya ba haddana banaasarigii 150 meter kare siiyey sidaa maaha u balageli 1,000 meter kare baa ku yaala 150 oo 1,000 meter anigu goorma seexay anigu 150 meter kare baa seexay laakiin wasiiradii orod bas hadii biga meel joogtaan inay telefonkayga wax xidhatay kii kalena baxsay tiri kii wasiirkii isagu waa horoona ligii waa horoona oo waxa la yidhaha cabdikariim yadana aamine cabdiwale waa wasiirka habitaaga
orod bes qaadaa lagu leeyahay odayga cali cabdi iyo islaanta ii geebeleeda waa dhintay farmaajo ay geeysa eega sida odayga looga tocsanayo odayga in dalka lagala wareegay markaa laga leeyahay dalkii waa lala wareegay isaga idinba u baahan in la badbaadiyo sidaa ku garta walaalayaal waa arrinka iga yaabiyey warqadda uu seexayaba uma fiirsanaya madaxweyne 150 meter kare soo sameeya waa ninay barteenba ilan haddii kale way ka cabsanayeen markuu arko wejigu inigijid waa maxay 150 soo sameeya inigii waa maxay ku kala soo samaysa minore uma fiirsanba taas baa walaalayaal ka jirta waxyaalo badan caykaas ibka laga sheegayo in lagu dheerayn maayo yaa waddankan ay maaragtay ku guranayaan maaragtay weliba reer kale oo gacalkiisa ah markay khashifbaan orod bay isqaadayaan waxay tegayaan shaati niga leeyahay markay lacagta gurtaan iminka gabadhan ee hargeysa u carartiya kala ma garanayado laakiin iminka way dhuumanaysaa bay telefoonada way qabanayaan isagii lafta ka dhacsan isagii baa ceebina laga tocsanaya oo la badayaa inuu wax ka sii yihiin وهديتوا الاسكور يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لك اخويا محمد عوالوها اسماعيل مرجله ولا لو انك اركي اسقو عيسي يا اسكو تغ او برادويان عيسي هلا لاي اخي قنيمده انت هله لا حول ولا قوه الا بالله يعني ولا لا guulaysanay ciise meel kasta ay dacalada adduunka joogaan in yarba hadeedna hadha gabagabo wax waliba oo laga kamo oo laga dhismo dumarka wax dhisa soomaalidana dumarka wax dhisa barnaamijka kaga baxaya hooyooyinka meel kasta ay dacalada adduunka joogaan inta jooga maxay ahaydeen Yurubta Afrika Djibouti Soomaaliya Ethiopia walaalayaal hablaha mijukuley ee qurux badan ku dheeriya inamadooda inay iskuursadaan meel kastaan inamadana waxaan farayaa hablihiina soo dhaweeya romantigu noqda soo dhaweeya hableyna walaalayaal waa nabadi TV meel kasta dacalada adduunka joogtiin hableyna qurux badan mijukuleyda inoo jimcaha hadduu ilaahay yidhaa walaalayaal salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye bye